Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteeda, waa mar kale muuqaal kaloo cusub. Maanta waxaan idin wadaa 3 saliidood aan inaba caadi ahayn, timahaadana kuu qurxinayo, kuu bixinayo, kuu dheedheeraynaya. Igala faa'iidaysta gabdhahayga qaaliga quruxda badan. Saliidda koowaad waa olive oil, saliid saytuun, welibana saliidda Siiriyaanka asalka birimada ah waaye, maasha Allah. Ta labaad waxa waaye Jamaican castor oil black waaye. Saliidan timaha aad ugu wanaagsan tahay. Qofkii yaqaana ayaa yaqaano. Inta aan aqoonin waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta. Saliidda saddexaad idin wada waxa waaye waa flaxseed oil ama batuuril kataan saa u taqaano. Waa saafi, waxba laguma darin, kaligeed ayay ka samaysan tahay. Qasqasi mid yaa wax kale lagu soo qasamaha. Batuuril kataan kaligeed ayay ka samaysan tahay. Waa 3 saliid oo daawo ah. Timahaadana aad ugu wanaagsan. Waxtar badan u leh haddii aad tahay reera jilciso iyo haddii aad tahay dadka ay marnaba timahooda aysan koraynin oo mar walba daadanayaan oo ay ka jajabayaan. Aad ay ku caawinaysaa. Haddii aad tahay reera jilciso weligaaba ka fogow saliidaha carfaya ee kulul ee gaaska leh. Haba isticmaalin. Sidoo kale haddii aad tahay dadka ay marnaba timahooda aysan bixin ama ay jajabkooda oo siyaado yahay ayakana sidoo kale ka fogow saliidaha carfaya ee gaaska leh ee kulul jooji. Timahaadana uma wanaagsan, madaxaadana uma wanaagsan. Saliidii ka qabowdahay way ka nafaqo badan tahay, wayna ka waxtar badan tahay. Marka asxaabteyda waxaan rajeynayaa inay igala faa'iidaysateen. Muuqaalkeena maanta wuu kooban yahay, waa wax yar oo gaaban. Si share garay asxaabtiina kale la wadaaga. Saliidan haddii aad marsato ama aad joogtayso timahaada bixida ay bilaabaan ma jooji doonaan. Gabdhaha yaryar ee timaha ay u bixi laayihiin umari adiga marso wax weyn ayaad ka dareemi doontaa. Commentiga idinka